baarlamaanka Hirshabelle ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar waxay uga doodeen lacag mushaaraad ah oo la lunsaday warbixin umurta ku saabsan waxayna haya wariyahayaga Cabdiqaadir Nadaara baarlamaanka Hirshabelle oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka dooday lacag mushaaraad ah oo ka maqan kulankan ay baarlamaanka yeesheen waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre qaar ka mid ah xildhibaanada oo kulanka ka hadlay ayaa codsaday in mishaarkooda ay waliba canshuuraha laga qaado deegaanada Hirshabelle meel lagu sheego waxaana ay sheegeen inay gudbiyeen magacyada xildhibaano mishaar la'aan ah oo gaaraya in ka badan 34 xildhibaan gudoomiyaha waxa hortiisa taala waraaq 34 xildhibaan mudan ay ku saxiixan yihiin oo xuquuqdii baarlamaanka looga codsanayo inuu meel ku sheego asaa gacantiisa ku haysto waxa la rabaa inuu laba soo kala cadeeyo xuquuqdiini waatana halkaan ay saaran tahay ama ma saarne meeshay saaran tahay annaga ka raadsanayna annaga yaqaaneen gudoomiyaha ha cadeeyo hana ka hor leexda xildhibaanada uu istaag kulaha ku yahay hadda ka hor waxa la sheegaa nin macallin ah waxa loo keenay ilmo la yiri dugsi quraan bar ilmii 4 sano kadib markii loo soo laabtay waxay taagan yihiin qulwal markaas waxa la yiri macallin 4 sano iyo qulwal isma qabatay say wax u jiraan markaasuu yiri ilmii anaa idiga daba imaadeen gudoomiye waa isku dhaganahay indhaha kala qaad salaamu calaykum masaasa xildhibaano ku ahaanayna ma ku ahaanayno waa in la hor keenaa madaxweyne ku-xigeenka waa in la hor keenaa baarlamaanka wasiir wax qayma ma laha gudoomiye gobol wax qayma uu leeyahay ma jirto asaaba lacagta doo soo kordhi waa laga qaadaa meesha oo foorka ay iska yihiin kadibna waxaan u soo jeesanaynaa gudoonka Soomaalidu waxay tiraahdaa oo ay ku maamaahan waxa gabsas inkaaray oo uu rays u duceeyay ayaa la yaab leh waxa saddexda gudoonka ah u duceeyay oo 96 xildhibaan inkaaray ayaa ka siyaab badan waxaan loo soo diray xuquuqda baarlamaanka waa sax xuquuq waa leenahay waana naga maqantaa xuquuqda naga maqan meelka kuma maqnay gudoonka ku maqantaa meelka kuma maqnaa gudoonka ku maqantahay hadii wasiiradan lagu dhawaaqay siyaasadda ay tahay oo xuquuqda baarlamaanka lagu luminayo ee dan la'aanba waa lagu tagaa daarta aakhire aniga dirirgeel hadii la igu dareen ma aha 2 sano ayaa dhisnay baarlamaanka oo wasiiradana ay dhisnaayeen wasiirna kuma leheen aniga hadii xuquuqda baarlamaanka lagu luminayo wasiirka xataa ma rabiyo waxaan ballan qaadaa aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa la magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ma u joojin doono xuquuqda baarlamaanka ee maqan waxaa la dhiibay 4 bilood 3 bilood kadib ku dool hatta ma ilaaliso xasaaradda xildhibaannimada $250 bishii xasaaradda xildhibaannimada ma ilaaliso waxaan hortiida ka ballan qaadaa wasiirka koowaad oo wasiir doona aniga noqon doono haddii la heli waayo xuquuqda baarlamaanka ka maqan gudoonkana way maqlayaan wasiirka ugu horeeya wasiir aan noqon doono doole oo dilka waxaan adin sheegay in markaan warqadda u geeyay inay u yiraahdaan budget support iyo dawladda hadduu yimaado waan bixinaynaa dhaqaale kale ma hayno Hirshabelle ka soo xarooda intaa wixii ka horeeyay waxaan heli karnaa $1000 ugu horeeyay aan xildhibaanada siinayna jawaabtaas ka soo noqotay waan adin sheegay Cabdiqaadir Cumar Ibrahim Cabdiqaadir Nadaara CNN Somali TV